ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إلهي هرتيسو كدارت wuxuu yidhi walla inaan horay kaga imaan oon gadaal ka soo geli oon midig kaga imaan oon bidixda kaga imaan oon jidka u fadhiisani intooda badanna heli maysid inay kugu shukriyaan. shaqo kale ma leh sida nebigeennu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh kursigiisa iyo carshigiisa ugu weyn biyo korkood bay saaran yihiin. mamlakada uu ka maamulo adduunka ka maamulo ninkii la yidhahda ibliis badaha iyo biyaha korkooday saarantay halkaasuu joogaa. odayga ugu weyn halkaasuu joogaa. halkaasuu subaxdii marka ciidamada ka kala diraa. bini aadamkaad arkaysaan ruux kasta oo ka mid ah mid buu ku lamaaniyey oo shaqo uga dhigay. shaqo kale ma leh. isagu ma xamaasho, ma shaqaysto, hawl kale kuma mashquulo, ma daaho. adigaa unbaa iyuu shaqadiisu waa adiga. bal ka warran marka ka warran ma aragtid, kuuma muuqdo, iskama riixi kartid, candhuuf kuma tufi kartid, si aad ka yeesho ma taqaanid, kaama maqna, adigii unbuu kugu lamaanyay. dan kalena ma lehee adiga dantaada inuu ku seejiyo unbuu doonaya. bal ka warran marka soo khatarinteeda leeg ma ah khatarinteeda leeg. haddana wuxuu kaa soo gelayaa naftaaduu yaqaanaa. ruux walba naftiisu waxay jeceshahay iyo meeshay ka dabacsan tahay iyo boyntiga ay ka jilicsan tahay buu garanaya. markaasuu ka soo gelaya. mid baa wuxuu u jilicsan yahay xagga dumarka iyo shahwaduu u jilicsan yahay, xagga zinaduu ka soo gelaya, dhankaasuu u jiidanayaa isaga. mid baa wuxuu u jilicsan yahay xagga adduunyada iyo jacaylkeeda, albaabkaasuu kaga imaanaya, markaasuu adduunyada xaggeeda ka soo gelaya, jiidanaya. mid baa kursi jecel oo magac jecel, dhanka magac jacaylka iyo kursiguu ka soo gelaya, markaasuu duufsanaya. xariif weeye, waa yaqaanaa, mid walba meeshuu ka galuu garanaya. aadam aabbaheen aadam xaggee buu ka soo galay? yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla. aadamu ma ku tusaa boqortooyo waaraysa iyo nolol aan dhammaad lahayn, ma ku tusaa waxaad ku gaadhayso. aadam ilaahay baa horay uga digay oo ku yidhi iska jire. aadam warkiisa waa ku kalsoonaan waay. geed haddaad isticmaashood cunto aadamow aad gaadhayso boqortooyo aan dhammaanaynin, duugoobaynin, iyo jiritaan waaritaan aan weligii aan geeri lahayn, geedaad ku gaadhaysa ma kuu sheegaa? haa, waa ka geedkana cun. rabbigaa wax kale kuuma diidine inaad malag noqoto unbaa geedka lagugu diiday. bal tijaabi. aadam warkii waa ka dhegaysan waay. markaasuu u dhaartay waqaasamahumaa innii lakumaa la mina annaasixiin. wuxuu ugu dhaartay inaan daacad idiin ahay. warnimayo idinma sirahayo. aadamow maxaan kaa siri adiga? daacad baan kuu ahay, wax kaa qarsoon baan kuu sheegahayaa. ha qaado geedda cun. boqortooya halkanay taallaa aan dhammaad lahayn, nolol aan weligeed aadan ka dhimaninna halkanay taallaa, ha seegin. aadam waa ka marka waxa weeye ku dhacay. wacasaa aadamu rabbahu faqawaa. qaar buu marka boqortooyada ka soo geli, qaar buu wuxuu ka soo gelayaa xagga dumarka iyo shahwaduu ka soo gelaya, qaar xagga xooluhu ka soo gelaya, qaar xagga magac raadintuu ka soo gelaya. magac iyo wuxuu rabaa inuu yacni mashhuur noqdo, inuu caan baxuu doonayaa. mid walba meesha daciifkaa ee laga soo geli kariya albaabkiisa wuu garanaya. shaqo kalena ma laha. walaalayaal marka ninkaasi waa ninka iska jira layna yidhi ee rabbi inooga digay subxaana wa tacaala. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ننكا كذب بدن يوسن إذن كذن. إن الشيطان لكم عدو. شيطان عدو إذيهي فاتخذوه عدوا عدو كدكت. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الصعير. dadkiisiiyo xisbigiisa wuxuu ugu yeedhayaa
inay naarta saciira la galaan oy kala qayb qaataan oo isaga la galaan sidaas unbuu doonayay ujeeddadiisu waa intaan iska jira buu rabbigeenna leeyahay subxaana wa tacaala saddexdaa caqabadood haddaad aragtaan bini aadam lubay oo jidkii jannada ka baxay oo jidkii naarta qaaday asal horta asaas waxaa u ah ibliis baa asaas u ah laba mid buuna u isticmaalay naftiisuu ka soo galay oo naftiisuu u soo maray adduunyana wuu ku lumiyeyoo meesha uu yacni waxa weeye sababta uga dhigay uu ku lunsaday waa adduunyada waa magacaas waa xoolahaas waa boqortooyadaas waa macnaha shahwadaas meelahaasuu ka soo galay saas daraaddeed saddexdaa arrimoodna ha layska jiro ha laga taxadaro jidka jannada iyo macaalimtiisa iyo astaantiisuna waa midda kadibna waxa weeye dadaalku innagu inala jira oo innagaa laynaga doonaya inaynu dadaalno faman shaa'a falyakfur faman shaa'a falyakfur waman shaa'a falyu'min kadib idinkaa khiyaarka iska leh haddii ninkii doonaya inuu kufriyowna aday kula jirtaa ninkii inuu rumeeyo doonayowna aday kula jirtaa ninkii jidkaa inuu qaado diyaar u ahow ahlan wasahlan soo dhowow ninkii aan rabinowna waxaad un ku talagelaysaa ha riyoonnine qarowga iyo riyada intaad ka baxdo yacni waxa weeyaan jidkaa aad hayse ee nooca ahayni jid aad janno ku gaadhaysa maaha jid naxariis ilahay aad ku helaysana ma ah jid naar ku geynayo cadaab ilahay aad ku gelaysa way subxana wa tacala allah subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca rabbi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo jidka jannada loo maro nuguna sugo nuguna soo saaro rabbi subxaana wa tacaala jannadiisa firdowsana ilaahay abaalgud nooga dhigo wixii khalada ilaahay subxana wa tacala inuu naga saamaxo wixii sawaabana ilaahay inuu ajir naga siiyo hada wabillahi tawfiiq wsala allahuma wslam cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi waslem